mardhow la soo gabagabaynayaa qayb ka mid ah kulamadii maanta lagu balansanaa halkan inay ka dhacaan oo wadamada la isku yiraahdo safka hore ama frontline states waxa qaybta hore kulamadaas ay haayeen kulamo dhex maraya taliyaasha ciidamada dalalka safka hore la isku yiraahdo oo Soomaaliya horkacayso waxa ka mid ah dalalka Kenya, Ethiopia iyo Djibouti sidaan hore u sheegnayna ama war-saxaafadeedkeena ugu horeeyay saaka uu soo baxayna waxaan ku sheegnay in shirkan uu salka ku hayo shir madaxeed la filayo beri inuu ka dhaco magaalada Muqdisho marka taliyaasha qaybta taliyaasha oo mardhow la soo gabagabeynaya waxa inta badan diiradda lagu saareeyay wada shaqaynta iyo iskaashiga in la dejiyo istaraatiijiyad mid ah oo ay leeyihiin ciidamada dalalkan safka hore oo ku aadan howlgallada haatan dawladda federaalka ee Soomaaliya ka wado qaybo badan oo dalka Soomaaliya waxaa la isla gartay maadaama hawsha nabadgelyada marka laga hadlayo aysan ahayn mid ku kooban dal kaliya in ay muhiim tahay in dalalka safka hore ay iskaashi mid la yimaadaan oo ay istaraatiijiyad mid ah oo ay kaga hortagayaan oo lagu dhameystirayo howlgalladan ay markaas yeeshaan waxa marka la soo gabagabeeyo shirkan haatan taliyaasha ciidamada u socda xigi doona shirka wasiirada difaaca ee dalalka afarta ah ee frontline stateska ama wadamada safka hore waxa iyana shirkaasi lagu diyaarin doonaa ajendihii rasmiga ahaa ee madaxweynayaasha beri ay ka doodi lahaayeen isla markaana ay ka soo saari lahaayeen war murtiyad loo dhan yahay oo ku aadan in khataraha dhinaca argagixisada loo arko khataro gobolka oo dhan dhibaato u geysan kara isla markaasna howlgal kasta oo la rabo in laga fuliyo gobolkan uu loo arko inuu yahay howlgal dan u ah amniga guud ahaan deegaanada amaba gobolkan la isku yiraahdo safka hore ujeedka haddii aan dib ugu noqdo waxa ay tahay dalalka intooda badan waxa haatan muuqda inay sameynayaan iskaashiyo dhinaca dhaqaalaha iyo arrimaha bulshada ah halka inta badan geeska Afrika ay ka jiraan colaado iyo dhibaatooyin kale marka rajada ka jirta waxay tahay in marka howlgalladan Soomaaliya ka socda la soo afjaro ay dalalkani bilaabi doonaan amaba ay wajihi doonaan ama diiradda saari doonaan iskaashigooda la xiriira dhinaca dhaqaalaha arrimaha bulshada iyo siyaasadda laakiin waxa marka hore shardi ah in dhinaca amniga la iska kaashado si dhibaatooyinka amniga haatan muuqda meesha looga saaro hambalyo ayaan marka lagu dirinaa ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed iyo shacabka oo iskaashanaya oo guulo waaweyn ka gaaray dagaaladii lagula jiray argagixisada gaar ahaan deegaanada Galmudug iyo Hirshabeelle oo guulo waaweyn laga soo gaaray deegaanada xigi doona sida madaxweynaha hore u sheegayna waxa ka mid ah Koonfur Galbeed iyo Jubbaland oo durba ay haatan howlgal ka socdaan marka isku dar ama marka isku geeyno waxa inoo soo baxaysa natiijada ah in howlgalkan Soomaaliya ka socda loo arkay inuu yahay howlgal amniga Soomaaliya kaliya aan ku koobnayn balse dan ay ugu jirto wadamada kale ee ku yaala gobolkan طبعا دولته waxay soo saartay war qoraal ah oo ay shacabka Soomaaliyeed uga cudur daaranayso xadidaadda dhaqdhaqaaqooda amaba xayiraadaha lagu soo rogayo duulimaadyada sababo amni iyo qiimeyn la sameeyay awgeed ayaan taasi loo sameeyay maadaama arintani amaba shirkan uu yahay shir muhiim u ah amniga lana doonayo in mustaqbalka Soomaaliya amaba amniga gobolkan looga arinsanayo waxa loo arkay muhiimad inay tahay in labada maalmood loo cudur daaro shacabka Soomaaliyeed waan dareemaynaa culayskaasi waan la qaadaynaa culayskaasi jira laakiin waxaan filayaa in duruufaha jira qof walba uu ogsoon yahay ay sababeen in dawladdu ay qaado talaabo noocaas ah waxaan filayaa in jawaabteeda hore aad dhageysatay oo aan eray qiimeyn la sameeyay darteeda ayaa sababo amni darteeda ayaa loo sameeyay oo qiimeyntaas ay ka soo baxday natiijada marka waad dareemi kartaa marka ay howlo amni jiraan inaysan jirin sharaxaad dheeraad oo aan ka ahayn qiimeyntaas la sameeyay dadka la wadaago go'aan kale la qaato